عليكم. نعيش في زمان اجتمعت فيه معاصي قوم نوح ولوط وفرعون وهامان وقارون، ولا يزال الله يرحمنا. إنها ليلة الجمعة فصلوا على الحبيب، صلى عليك الله ما وطئ الثرى، وعداد رمل فوق قاع صفصف. يا رب فاجمعنا به في جنة متنعمين على بساط رفرف. waxaan nool nahay xilli iyo zaman ay kulantay nabillaahi nuux qoomkiisa macaasidiisii iyo qowmu luud macaasidoodii iyo fircawn iyo haamaan iyo qaaruun. saas darteedna alle subxaana wa tacaala weli wuu inoo naxariisanayaa oo inama cadaabayo mana ina halaagayo. qowmu luud waxay samayn jireen, waad garanaysaan, labaadkii iyo gays waxa u taqaanaan rag inuu guursado oo dumarkii dhexda laga saaro. laakiin se annaga maxaan ku darnay, ummadda hadda waxaan ku dartay dumar inay guursadaan. xadiidka warinaa tirmidi wuxuu dhahay nabi sal ly slam, ina aqwafa maa aqaafu calaa ummatii camalu qowmi luud. ummaddeedu waxaan oga cabsi qaba aan oga baqa waxaa weeyaan inay la yimaadaan qowmu luud waxay samayni jireen iyo acmaashooda. dabcan haddana waan joognaa, waad arkaysaa. qowmu nuux calayhi salaam, nabillahi nuux qoomkiisana 950 sano dacwada uu yeerahayay kitaab rabbi qaata alla caabuda weydiiyey. ummadda hadda joogtana war kitaab rabbi ku dhaqma oo dastuurka dhigta ayaa laga leeyahay. weli waxay daba ordahayaan oo daba taagan yahaan qawaaniin gaar ay dejisay iyo dastuur iyo dimuqraadiya. fircawn waad garanaysaan, ilahnimo ayuu sheegtay kaanamaa inuu dhiman rabin. dadka hadda jooga madaxda joogta ama dadka qaarkood markaa fiirso odayadaas waxay samaynayaan kaanamaa geeriba inay u dambeynin oo aakhiro ay ka dambeynin. haamaanna wuxuu ahaa wasiiru fircawn. wasiirada hadda joogo madaxda wax dhumiya ama dakhal ka tuura inta badan waa ayaga, in ilaa u naxariisto mooyaane, in yaro allah u naxariisto in yaro allah u naxariisto mooyaane, inta badan madaxda ayaga sabab u ah inay waddada saxdaha ama dadka shacabkooda ay ku jiraan. qaaruunna waad garanaysaan, ilaah subxaana wa tacaala, allah subxaana wa tacaala ayaa wuxuu siiyey qaaruun maal iyo xoolo fara badan uu siiyey. nabillaahi muuse markii lagu soo farad yeelay zakada, qaaruun waa diiday zakada inuu bixiyo, xoolihiisiisa uu ka bixiyo iyo sadaqadii dadka masaakiinta u siiyo waa diiday, oo bal xoolihii waa ku kufriyey, dhulka ayuu la jaray. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال كان تلقوا